والله محمود حالكون وكعسين هاي وجدا إنا ما أنت قولنا وقلي هاي أم سوري وصوك من دونا إن شاء الله ما حسوا يقول درجة أرسنال ليفربول كالكروميس والله يروى محوها عدي مدو يا قول درا يا محوها فرحت بولو جوجا أنا قاعدة نقول درجة أنا هيسو مركب دم لها وصوك من دونا إن شاء الله والله waa u jeedaabay inaan ka soo baxay iyadoo ay dhiman tahay ugu yaraan 6 daqiiqo ciyaartan waxaan ku nimaadnay form fiican ciyaarta ugu dambeysayna laga raayay waxay ahayd gamekii Manchester City marka 10 game oo waxaan soo marnay aan laga raynin marka form fiican ayaan ku nimaadnay waxaan u maleynayaa inay ka imaanayso maadaama Liverpool laga soo raayay markii ugu horeysay laga raayay inay ugu tala galeen inay ka soo kabsadaan oo ay gamekan waxa moodaa ay ku soo galeen si aananba ka filaynba marka waa laga yaabaa 5 ilaa 6 inay ku dhamaatay xogaaba ka dhiman ma xasoo asleedahay in goolashan abadan Arsenal laga dhalay muddo kadib waxa keenaysa Arteta maysa dhageysan meesha touchline-ka ayuu maartay wuxuu dhahay weerara waxa moodaa inay maartay difaacan waliba qaab lahayn inay ugu tala galeen marna hadaa difaacdid adiga ogolaanaysa in lagu soo weeraro hadaa fiirisid ciyaarta inta badan waxay ka socotay Maanena wuxuu arkay Tomayaso inaan la siinaynin taageero wuxuu uga baahnaa White wuu maartay wuu abandon ku sameeyay marka taas ayaa keentay inuu Maane helo meel uu ka weerar galo markii inta ugu dambeysana ciyaarta qaybta Tavares oo kaleete wuu isku yaacay intuu bixin lahaa la Congo waxa la rabay inuu bixiyo Tavares because Tavares ma walahayn kalsooni banooniga saddexdii banooni ugu dambeysay dhinaciis isaga dhiibay banooniga weyn u sahlaneed inuu Jota dhaliyo waa sahlaneed inuu Maane dhaliyo waa sahlaneed inuu Salah dhaliyo marka hadda wixii ka dambeeyay waxay tahay qofkii kasta ha dhaliyo 20 daqiiqo ugu dambeysay waxay ahayd game oo tababar ma is ahayn game in la ciyaarayaan waxay isku diyaarayaan ciyaaraha soo socda haddii aad guuleysan lahaydeen booska afraad ayaa gali lahaydeen ka waran hadda booskiina sii joogayseen maxay sarjidina tahay rajadeena way fiicneed because hadda ciyaarta markay bilaabanayso Liverpool waxay fadhida 4 annagana waxaan fadhina 5 marka ciyaartu waxay ku socotay qaybaha in annaga kor aan maaragtay aan si aadno hadda laakiin tan waa iska niyad jab because game-ka hadda soo socdaahay ay game ay ruuxooda sahlan ma aha waxaan u maleynayaa Chelsea iyo Arsenal ba waxay la ciyaar doontaa Manchester United oo isku xigaan marka taas markii laga fiiriyo waxaan rajaynayaa inay ka soo kabsadaan laakiin tan waa dhaawac aad u falxir نيو جيرماني أفكار وناجي هرتكوا جولدرا ليفربول كاسو قالت ميدي كرتاني أرسنال كسمة هاي أنا أستون فيلا تايرا ستيفن جيرا ولي تاير جري ستيفن جيرا مركز أستون فيلا ما دام معلوم نقطة وهي أرجو وتوسع عضها أنا أستون فيلا وحيد هذا قررت الله أكون بدي سيله لا جولدرا كسو قالت ده ترى قاب كلام كوفما بدك كده أرسنال ضد تاير عليه أرد كان هران لو قبل أو مانشستر مركز ننا أرد جينا دوردو مركز ننا أرد جينا سيوردا مركز عليه أنا وابس كان مانشستر هرنو جلسي مانشستر أول ترافض ما دام شنقول له وصلته أنا أقول إسلام مركا محترق كنا تاجين مركي لو قال لكن أوردن بس تاجر أرسنال شو ما كسيوت أنا جا سفر كأستون فيلا ولا أرسنال بس كده أجمل هي صورة أستون فيلا كسيجارة ماني أنا أستون فيلا وين هاي هذا أنا بدي كده ستيفن جيرارد أنا صعد باني وهي أرجو رعمانه إسبورس كان مشارك مع لوسيا وما يسوانه أما شركتك أنت اللي يراك واحد مشارك وسوق قدام على ده marka anigu wixii hamiga marka waxaan taageeraa darboyna taageeri jiray Stephen Gerrard maadaama hadda uu yimid aniga Aston Villa oo taageeraa adiga dood ma ka qabtaa marka alle aqoonsado ninka kaliya hadda Aston Villa laga doodo hadda kadib hadii la arko duulayna maxaa Arsenal gurdaraan caawa u soo in afar gool laga dhalayo niyo waa la kala fiican yahay horta hadii runta la isku sheego Liverpool Manchester City Chelsea waxaad moodaa inay u diyaarsan yihiin Real inay ku tartamaan inta kalena waa ka daba tartamayaan saddexdooda ka daba tartamayaan marka saasa marka difference-gaas u dhaxeeyo Arsenal kabsi uma jeeda ay Arsenal ana candahay Arsenal iyo Manchester iyo Milan iyo Ishaq halka waxa ay Barcelona la isku diraan halka waxa fiican laga soo saar maana jidkaas dil maray waa macquul jidkaas ma lawaay kooxahan sidoo loo jeedo magacaan la u jirayaan horta waan ila badiyay waxa excuse ma jiro laakiin waxa isla guuldarada xogaa macalinka difaac galay Arteta waxa waaye macalin la'aan maxaa sabab waxaan dhihi karaa macalinka kooxda macalin la'aan hayso marka Arteta inuu ka cabsado meen inuu Bruno caadi oo furan la dheelay marka hadii uu cabsaday difaacu galo waa lagu arooriyay caadi way sidee ugu soo kabsan kartaa guuldarada afartii Everton ee Liverpool ka soo gaartay caawa ما waxaan isla ciyaarta dambe soo socoto waa ka soo kabanayna waliba homekeena afar ma shan aan badanayna waxa ku rajaweeyay inaad boosas ka hor inaad soo gashaan balse booskiina ayaa taageertiin ka war dhimala waa ciyaaraha soo socdaan u diyaar garoobeynaa wali ciyaartu waa dhexdhex waaye kooy laba ma joogto inaan qaadnaa rajaynaya horta sabab kale ma jirto
arsenal sanadii dambe dabeecada waxay lahayd markay kooxaha weyn la dheelayso inay qaladaad samayso caawana qaladaadkii mid la mid ah dhacay oo waa arkaysay goolasha laba ka mid ah arsenal ayadaa dhiibatay mar kastana arsenal ay big game dheelaysana waxaa jira qaladaad ay garsoorayaashu galaan runtii waxaa ka mid ah daqiiqadii koowaad Sadio Mane foul oo galay jaallo xaq u lahayd kubad oo khatar ah oo galay oo madaxa daqiiqadii shanaad foul kale halis oo galay daqiiqadii 32 Sadio Mane foul kale halis oo galay intaasba waxay laba jaallo lahayd intuusu goolka dhalin ka hor in garoonka laga saaray ahayd marka bad officiating way jirtaa Arsenal oo u muuqan kuwa u diyaarsan inay Anfield Liverpool dabca uga soo qaataana way jirtay si kastaba ahaatee kooxdii fiicneed way badis hambali ayaana leeyahay taageerayaasha Liverpool wallahi waa ku saxday in Arsenal ka badinayo oo Arsenal sida hore maahan xilliga Fiere iyo Wiltord iyo u dheelayeen Thierry Henry maahan Arsenal dhimatay ala dheelay wax iska celin kara maahan marka Arsenal waxa leeyahay Allah u naxariis qaborashi Ali Abdullahi jirtay barakaad hadda Arsenal sidee ku soo qabsan kartaa guusha gaartayna ka waran Arsenal inay soo qabsato mar wiligeed saan inay haataan raba oo saan u kor saarnaado oo koox Ahmed Talili Daawud wali Jibril Xasan Fariid taageeraan koox maahan waxaas koox maahan iyagu soo dhisin mana soo noolahay Arsenal see u dhimato way bisnii kartiin horyaalka oo la tirtami kartiin kaalmaha hore soo geli kartiin maadaama aad loogu loolamay horyaalka sanadka horyaalkiina qaado jeclaha aniga Chelsea iyo Liverpool iyo Man City horyaalka ku tartamaan Arsenal iyo Manchester way faactini waayna u maleynaa taageerayaasha Liverpool caawa cidla ay dishay astaan cidla ay ugu qabat muddo wuxuu balamiye Arsenal bismiya ma qaani taageero Liverpool meesha waa ka dhaxwaaye marka waxa ka cusubaa taageero Liverpool habeenkii dheelista astaan ay ugu yimaadeen tasaniya cabay chocolate xunay halwa xunay marka meeshan astaan ay yimaad taageero Liverpool alla waa ma san tahay orta kullu xiisa badan ma la dhigi karo marka la fiiriyo natiijada ka dhalatay ciyaarta waxayna u muuqatay koox yar oo sida Leicester ama Watford iyo Liverpool oo wada ciyaaray ciyaarta waxa la isdhigi karaa natiijada koow waxa sababay waa Liverpool oo naadi adag ah sanadii ugu dambeeyana dabcan aad u fiicnaa ciyaarteedii isku aadkeedii tababaraheeda mid labaad xitaa in Anfield joogto oo garoon inta badan naadiyadu waaweyn ay ka cabsadaan ah tan saddexaad waxay tahay Arsenal tan iyo Mikel Arteta soo qabtay waa la ogyahay naadiyadu waaweyn kama badiso naadi isku toosan ma aha inkastoo sanadkan la rajeynayo inay mataqaanaa sidii hore si ka bedelan la soo baxdo ciyaartooy adag ay keensatay haddana waxay u muuqataa wili in Arsenal shii hore ay tahay Arsenal oo laga fiican yahay hatta iyadoo gool badan laga dhalanayo kubad isku dhiibashada aan ball positionka Arteta ka hore uma sadicin way sadacday marka waan mar walba waxaan qabaa Mikel Arteta kooxdan uma qalmo in laga bedelo maalintaas wixii ka dambeeyay ay iman karteen Arsenal lix fartan naadiyada asaageeda ah guushii laga gaaray aasaash Swediinta badan ah ma jirto guul laga gaaray Manchester City Liverpool Chelsea Manchester United naadiyada ee lix fartameys Arsenal inta badan guulaha waxay ka gaaraysaa kooxaha yar yar koox walbaana 4-5 game oo isku xigta ka badan kooxaha yar yar laakiin muhiimadda waxay tahay oo kooxda la dhigi karaa waa koox mid qaan u diyaarsan koob meel weyn joogta markay naadiyo weyn ka badanayso ugu yaraan waxa isdheeyna hadana badinaynin bareejo ama hal iyo eber wax la mid ah laakiin sidan Manchester United waxba kama sokeeno hal gool kaliya aan dheereen taasna waxa ku cadeynaysa in Arsenal barteedii la joogto hadda misdii kartaa Arsenal way u tartami kartaa horyaalka maadaama wali uu furan yahay anigu aad waxa u qabay Antonio Conte dadka aad u daneynaya ku jira Arsenal tababar looga dhigo laakiin markuu Tottenham aaday rajadii waa dhimatay Arteta in kulamo badan oo badiyo iska sii jooga ilama muuqato Mikel Arteta inta kooxdan hogaaminaya inuu wax koob u qaado ugu dambeyn maxay Arsenal ay ku daawoobi kartaa ee wadada guulaha ku raaci kartaa Arsenal waxay ku daawoobi kartaa milkiilaha kooxda in laga bedelo milkiile cusub oo gato sida milkiilayaasha Carbeed kuwa Afrika ee taajiriinta ah kadibna tababar fiican uu keeno ciyaartooydan Arsenal joogto intooda tababar fiican dii loo keeno meel ay gaaray runtii aad u faraxsanahay dareenkayga lama soo koobi karo kulankan horta ani ahaan kulan weyn ilama ahaan laakiin kulan xogaa Arsenal la rabay inay ku tijaabiso awoodeedii kulamada ugu dambeeyay maadaama isla qabsatay wiilal daayira Arteta isku soo aadistay xidigay Aubameyang iyo Lacazette aad waxba maqlay goolaha Ramsey ma Allah iyo Tomiyasu ma Allah waxba la sheegay dhamaantoodii Anfield la keenay koox weyn ay la dheelin Arsenal caaw waxay la dheeshay koox weyn oo kamid ah kooxaha horyaalka ay u tartamaya marka wixii dhacay la yaab ma lahan tiyaatarkan runtii ina mar walba ciyaar weyn isaga daawado tan ciyaar weyn ma ahayn aad u qanacsanaay Manchester Arsenal hadda kadib inta imaanaba Zuma da anta keensan lahaa ani xilligan oo kala bixilaa marka Arsenal
waxay ogaanaysaa in weli ay u baahan tahay inay wax badan isku soo aadiso liverpoolna waxay kasoo kabatay guuldaro lama filaan ay kala kulantay West Ham marka meeshan faaruq ay noqotay daqiiqadii 70aad wixii ka dambeeyay la yaab waaba qosleey baan taageerayaasha garoomada joogo kale way baxeen ba Arsenal difaac loo sacbinayo waxa buuqayna galiyeen marka hore laakiin markii dambe ayagoo qanacsan ay bixeen iyaga iyo goolayaashooda marka waxaan rajeynayaa kulan walba inta lagu ballamiyay inta horyaalka ku qaada intaan geeni doonaa